duleedka magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan iyada oo saacad walba la filan karo in dagaal weyn uu ka dhaco gudaha magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada wararka aan helayno ayaa daawadayaal waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay la dareemay culays waaweyn oo dhanka amniga ah kuwaas oo la sheegay in intooda badan ay ku saabsan yihiin xaaladaha halkaasi ka jira Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan Maxamed ayaa la soo warinayaa in uu danaynayo in uu markaasi magaalada Ceergaabo ka baxo iyada oo shirkii nabadda Ceergaabona qarka uu saaran yahay inuu fashilmo xubno saraakiil qaarkood oo aan la hadalnay si aan wax uga weydiino arrimahan waxay tilmaameen in ay cajiib iyo la yaab ku noqotay sida maamulka waqooyi bari xilligan uu u danaynayo in Ceergaabo ay xabad uu ka bilaabato iyaga oo taasi jaanis u arka haddaba waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ah in beelaha qaar ee Ceergaabo daga ay dagaalka bilaabaan si dagaalku u bilowdo laakiin sidaas si lamida waxaa jira iyagana aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya bulshada qaybahooda kala duwan iyada oo wararku ay leeyihiin dhowrkii saac la soo dhaafay waxaa la dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan oo ku aadan in magaalada ay ka dhici karaan weeraro waaweyn oo Somaliland lagu qaado maamulka waqooyi bari labadii bilood ee la soo dhaafay waxay si weyn u abaabulayeen ajendayaal waaweyn oo ay tahay baa la leeyahay in si degdeg ah gacan bir ah loogu qabto laakiin xogta la helayo ayaa waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saac ee la soo dhaafay la arkay aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo ku saabsan in Ceergaabo ay noqon karto meel furin oo dagaal oo aan la ogeyn xaaladeedu halka ay ku biyo shuban doonto mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Somaliland qaarkood waxay tilmaameen in Ceergaabo ay difaacayaan oo ay gacan bir ah ku qaban doonaan isla markaana ay ka hortaagan yihiin maamulka waqooyi bari in magaalada duulaan lagu soo qaado laakiin waxaa jirtay aragtiyo kala duwan oo taasi ah oo la xiriirta sida xilliga maamulka waqooyi bari uu u danaynayo in magaalada Ceergaabo ay gacan bir ah ku qabtaan markaad eegtid banaanka magaalada iyo daafaheeda waxaa arkaysaa ciidamo fara badan oo magaalada soo galay kuwaas oo dabaabaadka gaadiidka dagaalka wata waxaana ciidanka la aaminsan yahay inay noqon doonaan ciidankii weerari lahaa Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada marka uu soo dhamaado shirka looga hadlayo nabadda magaalada Ceergaabo oo isaguba hadda ku dhow inuu fashilmo ama uu burburo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan ayaa la soo warinayaa inuu ka carooday habka loo maamulay shirka isagoo hadda aaminsan in Ceergaabo aysan xalkeedu ahayn xabad laakiin Ceergaabo albaabadeedu ay furan yihiin haddaba wax yar waxaad la daawataan Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan Maxamed oo u dhaaranaya maamulka waqooyi bari isagoo leh haddii duulaan lagu soo qaado Ceergaabo jawaab adag ayaan bixinaynaa bal muuqaalkiisa wax yar la daawada waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha oo suuro geliyay kulankan maanta ballaaran oo halka la isugu yimi oo nabadda kow ka ahaa gogashana dhigay iyo dawladda xukuumaddiisa iyo raggii kala shaqeeyey oo gacanta ka siiyey oo guddiyada ahaa iyo maamulka gobolka Sanaag degmo iyo gobolba iyo guddidii aan soo dirnay xagga ka soo magacawnay iyo guddidii madaxweynuhu soo magacaabay iyo dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay hawsha nabadeynta aad baan ugu mahadnaqayaa waana salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay maalin taariikh leh oo halka aan isugu nimi nabadgelyada gobolka Sanaag intii ka qayb qaadataba waan ugu mahad celinayaa waana soo dhaweynayaa waana maalin taariikhiya madaxweynena gaar baan uga mahadnaqayaa hawsha isaga oo ahaa garwadeen ka ahaa gogashana bilaabay raggii la qaban qaabiyay oo la qabtayna waa uga mahad celinayaa madaxweyne waxaan leeyahay inta harsanna dhamaystirkeeda aday kugu taala iyo dawladdaada marka annaguna garab baan kugu siinaynaa diyaar baan u nahay wixii dhibanna waa dhamaystiraynaa cid allaale ciddii ka qayb qaadatayna waa uga mahad celinayaa waana u ducaynayaa gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo waxaan ilaahay uga rajaynayaa dadweynaheeda iyo ummadda ku noolba in ilaahay barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo ilaahay isugu soo celiyo ciddii ka maqan oo hadda inaga dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa iyagoo nabadgelyo in ilaahay noo keeno laguma kala maarmi karo waa meel dad ehela ay ku wada nool yihiin cid gaar ah oo keli ugu noolaan kartaa ma jirto
cid gaara oo gooni uga maqnaan kartaana ma jirto waxaan ugu baaqaynaa ciddii naga maqana inay si nabada inoogu soo xiroodaan oo inoogu yimaadaan inagoo wada jirana aynu dhinacyada wada qabanno nabadgelyo caama iyo wanaag iyo sharaf iyo sidii ay inoo ahaan jirtay degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag aynu isugu soo noqonno baan Ilaahay ka rajaynayaa cid allaale ciddii ka shaqaysana waa u mahadnaqaya waan u ducaynayaa waxaan leenahay kolba annagu waajib aanu qaadanay bay ahayd wax aanu cid wax ugu danaynaynay ma ahayn wax ummadeena iyo dadkeena iyo dalkeena aynu ugu danaynaynay bay ahayd waajibkeygii baanu gudanay wixii noo harsanna diyaar baanu u nahay waan dhammaystiraynaa qof kastoo gobolka Sanaag ka mida waxaan u soo jeedinaynaa inuu hawshaa inagu aynu hormood u noqono hadday gobolka iyo maamulka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo salaadiinta ay tahay inaga hormood ka noqon karnaa inaga